wardegdeg ah daawadayaal ugaaska beesha ciise oo isku day dil ah ka badbaaday iyadoona rag hubaysan ay isku dayeen inay dilkaasi ay fuliyaan haddaba daawadayaal wararka soo ifbaxaya ee sheegaya in la dhaawacay ugaaska beesha ciise maxaa ka jira muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa sidoo kale waxaad halkan ku daawan doontaa ciidamada geesiyaasha Djibouti oo gacanta ku soo dhigay rag lagu eedeeyay in ay qayb ka geysanayeen dilka ugaaska xilli warar kala duwan ay soo ifbaxayaan haddaba muuqaalkan ayaa sidoo kale kugula wadaagi doonaa qodobada kale aad ku daawan doontaan oo degdeg ah waxay markaasi ay kamid yihiin dowladda Ethiopia ayaa digniin adag u dirtay maamulka Somaliland kuwaas oo qayb lixaad ka qaadanayay hubsiinta beesha Samaroon oo ay dagaal adag kula jirtay beesha Ciise haddaba Somaliland waxay ka tiri hadalkii ka soo yeeray dalka Ethiopia muuqaalkan ayaa sidoo kale kugula wadaagi doonaa dowladda aynu saaxiibanahay ee dowladda Turkiga oo kaashanayso dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in ay maamul la ogol yahay awdal state ay ka hirgeliyaan haddaba daawadayaal waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee dhawaan halkaasi ka jirtay xasarad iyo xiisad dagaal oo u dhaxaysa beelaha Ciise iyo waliba sidoo kale beesha Samaroon oo cashar fiican ay u dhigtay beesha markaasi Ciise muuqaalkan ayaan ku jeexjeexi doonaa wax walba ku aadan xaaladii ugu dambeeyay daawade haddii ay taa markuu ugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalada halkan aan soo gelin si ay ku soo gaaraan muuqaalkan hadda aad daawanaysidna la garay soona subscribe garay aragtidaadana qaybta hoose ee faallada noogu reeb daawade mahsanidin hagaag aynu ku bilaawno sida aad ka warqabtaanba waxa markaasi maalmihii dambe ishayay beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale beesha Ciise oo dhanka Djibouti ay markaasi jiraan iyo beesha Samaroon oo dhanka Somaliland soo jira ayaa maalmihii dambe waxa ay ku dagaalamayeen hoodka banaanka magaalada iyadoona halkaasi la isku farasaaray ciidamo badan ay halkaasi la soo kala dhoobay iyadoona qasaarooyin lixaad leh dagaalkaasi la isku gaarsiiyay inta hadda dagaalka uu socday qasaaraha ugu badan waxa la gaarsiiyay beesha Samaroon iyadoona in ka badan 100 askari laga dilay sidoo kale gawaari dagaalna laga guway qaarkoodna laga qabsaday balse wararka degdega ee saakay subaxnimadan soo ifbaxaya ayaa sheegaya in isku day dil ah uu ka badbaaday nabadoonka beesha Ciise nabadoon Yusuf kaas oo kamid ah nabadoonada sida weyn loo raadsanay rag hubaysan ayaa dilkaasi loo qorsheeyay inay fuliyaan balse ugaaska oo aad u foojignaa ayaa markiiba ay shaki badan ka muujiyeen dhalinyaradaas iyagoona isla markiiba ay isku dayeen in ay gacanta ku soo dhigaan sidoo kalena ugaaska isagoo bad qaban uu halkaasi ka tago balse xaaladda ayaa si cakirnaan lahayd haddii ugaaska halkaasi lagu dili lahaa iyadoona beesha Samaroonna ay u noqon lahayd guul weyn oo ay markaa u soo hooyato balse laakiin dagaalka wali faano le fara ka maqadno oo dhinacyadan kala duwan ay isku hayaan wali way isku hor fadhiyaan oo xaaladda ayaa ah mid aad u cakirin wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in ugaaska beesha Ciise Mustaf uu ka badbaaday isku day dil ah oo la damacsanaa sida markaasi lagu helay xogaha hordhaca ah ee warkaasi ma uusan markaasi balse ma uusan hirgelin dilkaasi waxaana si degdeg ah ugu markaasi falceliyay laamaha amniga ugaaska ayaana sida la sheegay in uu markaasi badqabo xaaladiisuna ay degan tahay inkastoo ay dhacdadan ay markaasi walaac ka abuurtay bulshada markaasi deegaanka xaaladda hadda ugaaska aad ay u degan tahay una wacan tahay marka loo fiiriyo sida uu isaga hore u ahaa balse isku daygaas ayaa noqday mid fashalmay balse waxa lagu doonayay in ugaaska beesha Ciise laga taqallaso dhanka kalena ciidamada waa markaasi ciidamada geesiyaasha ah markaasi ka tirsan Djibouti ayaa gacanta ku soo dhigay rag lagu tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen qorshaha isku dayga dilka ah howlgalkan qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada markaasi ayaana lagu soo qabtay eedeysanayaashan iyadoona la filayo in markaasi baaritaano dheer ah lagu sameeyo si loo xaqiijiyo cid kasta oo ku lug leh falkan isku dayga dilka ah ee lagu rabay in lagu qaarijiyo ugaaskii beesha guud ee beesha waa ugaaskii beesha Ciise ugaas Yusuf kaas oo isku daygaasi uu fashalmay balse maalmihii dambe Somaliland beesha ka socota ee Samaroon ayaa maalmihii dambe iyo waliba soo kale beesha Ciise oo Djibouti ka socotayna ay maalmihii dambe ay sugan tuulada durdur iyo meelo kale oo markaasi sool ka tirsan ay isku dagaaleen xilli 20 kilomitir ay Boorame ay u jirsadeen
askartan markaasi ama marka beesha ciise iyagoona ay doonayaan in gebi ahaanba Boorama ay la wareegaan balse laakiin Somaliland ayaa arinkaasi firgilin badan ku sameysay iyadoona ciidamada beesha ay dib u gurteen iyagoona is aruursi badan ay sameeyeen beesha ciise halka beesha Samroon ay gurmud weyn ay dalbadeen sidoo kale dawladda Ethiopia ayaa soo saartay digniino adag oo ku saabsan xiisadda markaasi ka taagan deegaanada waqooyi iyadoona ay si gaar ah uga digtay xoojinta hubeenta beelahan arintan oo ay markaasi ku tilmaameen mid halis gelin karta xasiloonida iyo waliba sidoo kale gobolka dhinac waa markaasi gobolka iyadoona Somaliland digniin adag loo jeediyay maadaama ay qayb lixaad leh ka qaadanaysay horinta dagaalkaas iyadoona beesha Samroon hubka ugu badan ay ku dagaalamayeen iyo gawaarida dagaalkaba ay uga imaanayeen dhankaas Somaliland balse laakiin dawladda Ethiopia oo fahansan shaxda iyo waliba sidoo kale taatikada dagaalka ayay u sheegtay in Somaliland ay ka waantoodo haddii ay sidan wax ku sii socdaalaan ay noqon karto in Somaliland garteeda ay galaan Ethiopia maadaama halka laga dagaalamayo ay tahay xuduudda u dhaxayso Ethiopia iyo waliba sidoo kale Somaliland dhanka kalena dawladda Turkiga ayaana markaa la sheegaya inay wado dadaalo markaasi waa ay bilaawayso iyadoona ku horumarinayso la xiriiro dhismaha taageerida maamulka Awdal State si loo xoojiyo nabadda iyo waliba sidoo kale wada noolaanshaha bulsho dawladda Turkiga oo dawladda Soomaaliya walaalo la ayaa markan qorsheynaysa inay qayb lixaad leh markan ay ka qaadato isku soo dhawaanshaha ay waliba sidoo kale in maamul cusub ee Awdal State lagu magacaabo in ay halkaasi laga dhiso si ugu yaraan ay halkaasi uga baabaado Somaliland waa dal kamid ah qaaradda Afrika balse laakiin ay noqon doonto ay horan u ahaayeenba maamul ka tirsan Soomaaliya iyadoona maamulka Somaliland oo hadda dagaal beeleedyadan sii hurinayo iyadoo tii hore ay goojacda ku qabsatay guul weyn loogu gaaray haddana maamulka Somaliland ayaan wali ka waantoobin iyagoona qorsheynaya ama markaasi ku tali jira sidii ay markaa ay dagaal beeleedyadan beesha ciise iyo waliba sidoo kale beesha Samroon ay u sii hurin lahaayeen balse laakiin xaaladdu ayaa hadda ah mid aan wacneen maadaama maalmihii dambe ay halkaasi ku wada dagaalamayeen beelahan beesha ciise iyo waliba sidoo kale beesha Samroon oo dagaal markaasi adag u dhaxeeyo daawade haddii aad halkan nala soo gaartay aragtidaada waa noo muhiim qaybta hoose faalada ayaad noogu reebi kartaa mar haddii aad halkan nala soo gaartay waxa tahay qof qalbi wanaagsan waxaan sidoo kale aan ka codsanayaa inaad YouTube-ka soo subscribe gareysid muuqaalkan la garay siin share garay saaxiibadaada la wadaag waa kuma santiin daawashada muuqaalkan mahsanidin